Somalidu qabkiya kibir marna qaadan mayse Somalidu qabkiya kibir marna qaadan mayse waxaana la ka qaban waayo qarqarsiga ku jooga mayna qof saclayo qaar kaloo kalito muqaarabanaya Somalidu qabkiya kibir marna qaadan mayse qabkiya kibir marna qaadan mayse waxaana la ka qaban waayo qarqarsiga ku jooga mayna qof saclayo qaar kaloo kalito muqaarabanaya waagag saaxiibayaal barnaamijkii habeen wanaagsan waqtigii aad dhegeysan jirteen ayaa la soo gaaray caawa barnaamijka waxaan idinkugu hayaa shacabka oromada oo caawa barnaamijka codadkooda ayaan idinkugu hayaa waliba caawa oromadu waxa ay sameeyeen barnaamij runtii idinka yaabi doona oo shacabka oromadu ay kula hadlayaan shacabka Soomaaliyeed oromo ayaa caawa barnaamijka idinkugu haya iyaga oo dadka Soomaaliyeed fariin u diraya ku hadlaya luqad Soomaaliyeed iyo luqadda oromada waxay fariin adag u diri doonaan qabaa'ilada degan dhulka Soomaalida Ethiopia oo caawa oromo ayaan barnaamijka idinkugu hayaa iyo u diyaar garooba goordhow barnaamijkii baa idinku soo maqan Somalidu qabkiya kibir marna qaadan mayse Somalidu qabkiya kibir marna qaadan mayse waxaana la ka qaban waayo qarqarsiga ku jooga mayna qof saclayo qaar kaloo kalito muqaarabanaya wax badan ayaan idin dhahay Soomaalida waxa ku jira ama loogu talagalay dad oromo luqadooda bartay oo u dhashay oromo oo dadka kala dili doona wax badan baan barnaamijka idinkugu sheegay caawa ayay rumowday oromo af Soomaali ku hadlaysa ayaa fariimo u diray warbaahinada Soomaaliyeed oo ay ka mid tahay idaacadda had iyo jeer aan idinkala soo hadlo ee Koonfur Africa Radio waxaad caawa maqli doontaan oromada baaqa ay Soomaalida u dirayso iyo sida luqadda ay ugu hadlayaan iyo sida loo kala dilayo qabaa'ilada Soomaaliyeed ayaan caawa barnaamijka idinkugu hayaa saacadu waa xilligii aad dhegeysan jirteen barnaamijka habeen wanaagsan anigoo Cabdilaahi Balwaan ayaa soo jeedinaya Somali weynay habeen wanaagsan Somali weynay habeen wanaagsan habeen wanaagsan dunida meel walbood inaga maqlaysaan waa 13 bisha 8 2018 waa isniin saacaduna waa 12 habeenimo oo gowa xilliga Koonfur Afrika qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijka habeen wanaagsan oo in badan oo kamid ah dadku ay arrimo kala duwan ku dhageystaan waxa kamid ah qowmiyadda oromada oo luqad Soomaaliya iyagoo ku hadlaya caawa barnaamijka u sheegay in uusan Cabdi Ilay matalin shacabka Soomaaliyeed iyagoo ka codsaday ummadda Soomaaliyeed in ay garab istaagaan oromada iyagoo ku dhawaaqaya oromo waa Soomaali Soomaaliduna waa oromo waxaan ilaahay Cabdi Ilay Soomaalida ma wakalo Soomaalida oromadu waa dad walaala waa dad hiliba waa dad isla dhashay fariin ay oromada u dirayaan shacabka Soomaaliyeed ayaan caawa barnaamijkeedu kugu hayaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan xisbiga haya talada gobolka ismaamulka Soomaalida Ethiopia oo gudoomiye u doortay Ahmed Shide oo in badan oo kamid ah siyaasiyiintu ama shacabka Soomaaliyeed ba ay ka dhageysan jireen barnaamijyadeeda in Ahmed Shide la hoos keeni doono siyaasadda maamulka ismaamulka Soomaalida Ethiopia hadda way rumowday Ahmed Shide ayaa hogaaminaya xisbiga haya talada gobolka ismaamulka Soomaalida Ethiopia isaga ayaana siyaasadii gobolka la hoos keenay maxay tahay sababta waqtigan keentay iyo qaabka loo doortay in siyaasigaasi uu gobolkaasi hogaamiyo barnaamijka ayaad ku maqli doontaan sanado badan kadib beelweynta direed ayaa waxay hogaanka siyaasadda maamulka ismaamulka Soomaalida Ethiopia noqonayaan hogaan iyaga oo beeshu ay xaq u yeelatay in waqtigan siyaasadda gobolka iyaga looga dambeeyo sidee baad u aragtaa go'aanka hadda soo baxay iyo waliba siyaasigaasi in gudoomiye looga dhigo gobolka ismaamulka Soomaalida Ethiopia barnaamijka ayaad caawa ku maqli doontaan qodobkani doodana kama miirno oo aragtida shacabka ayaanu eegi doonaa sidoo kale caawa barnaamijka waxaan idinkugu hayaa qowmiyadda oromada oo caawa barnaamijka fariin u soo diray iyaga oo ka codsaday shacabka Soomaaliyeed in ay ka foojignaadaan xagardaamada Cabdi Maxamuud oo loo yaqaano Cabdi Ilay isla markaana kamid ahaa siyaasiyiintii gobolka soo martay dhawaanahan xilka madaxweyne iska casilay waxay ku tilmaameen madaxweynihii hore ee ismaamulka Soomaalida Ethiopia Cabdi Maxamuud Cumar inuu ahaa qof aan Soomaalida matali karin fariinta oromadu ay soo direen ayaad caawa barnaamijka ku maqli doontaan waxaan ilaahay
soomaalida ma wakalo barnaamijka oo dhammaystiran anigoo cabdilaahi balwaan ayaa soo jeedinaya u diyaar garoob ah intii hadsaanteen dantood haleelida marqaabku howlan allah hanuunshe habeen wanaagsan intii hadsaanteen dantood haleelida marqaabku howlan allah hanuunshe habeen wanaagsan habeen wanaagsan dunida meel walbood inaga maqlaysaan barnaamijkii oo dhammaystiran ayaanu hadda gudageli doonaa goordhow waxaa idinku soo maqan xisbiga talada gobolka ismaamulka soomaalida Itoobiya oo gudoomiye u doortay Axmed Shide oo kamid ah siyaasiyiinta Itoobiya ka tirsan sidoo kalena qayb ka ah siyaasiyiinta ka soo jeeda maamulkaasi waxaad maqli doontaan faahfaahin dheer qaabka doorashada u dhacday hogaanka oo Axmed Shide uu hogaaminayo iyo siyaasadda maamulkaasi oo qabiil cusub hoos tagi doonta iyadoo sanado badan aan qabiilkan hogaanka gobolka aanan marnaba loo ogolaan maxay tahay sababta hadda Axmed Shide loo keenay gudoonkii xisbiga muxuu u qabtay booskii Cabdi Maxamuud Cumar ee xisbiga maxaa loogu bedelay maxay tahay sababta siyaasadii gobolka loo hoos keenay arrin ayaan idin hayaa caawa hadduu alla idmee marka hore Oromo qoomiyadda Oromada caawa fariin ayay barnaamijka u soo direen waxay codsadeen in fariintan bulshada Soomaaliyeed loo gudbiyo si ay dadka Soomaaliyeed u arkaan qaabka ay Oromadu u diyaar garowday luuqadda sida loo bartay iyo sida la doonayo waqtigan in loola loolamo waxayna Oromadu ka codsadeen barnaamijka habeen wanaagsan in fariintan la gaarsiiyo bulshada Soomaaliyeed Oromada oo aad moodo inay kala dilayaan qabaa'ilada Soomaaliyeed ayaa u sheegaya shacabka Soomaaliyeed ee ku nool ismaamulka Soomaalida Itoobiya in Cabdi Maxamuud Cumar uunan matelin shacab Soomaaliyeed waxayna Oromadu ku baaqayaan in lala walaaloobo Oromaduna aynan marnaba cadownimo u qabin shacabka Soomaaliyeed waxa ay la dagaashan yihiin ay tahay siyaasadii hore qoomiyadda Oromada oo barnaamijka habeen wanaagsan la hadlay waxay yiraahdeen oromo sininjibutu ya Soomaali oromo sininjibutu raadisa lama shaqo ya abiyuqiya ya ilma fadlan laba luuqadood ayay ku hadli doonaan iyagoo afka Soomaaliga aanan aad u aqoonin ayaa fariintooda waxay u dhacaysaa mid Oromada ku baxaysa luuqadooda qayb kamida muhiimadooda ayaan caawa ka codsaday in ay af Soomaali ku hadlaan maadaama ku hadalka af Soomaaligu uu aad u dhibayo balse muhiim bay inoo tahay marka hore luuqadooda ay ku hadli doonaan fariintu Soomaalida ay ku socotaa waxaa la leeyahay Oromo waa Soomaali Soomaalina waa Oromo waxay leeyihiin maamulkii hore ee Cabdi Maxamuud Cumar ma matalo shacabka ismaamulka Soomaalida Itoobiya siyaasadii Oromadu halkaa bay maraysaa mar kale oromo sininjibutu ya Soomaali oromo sininjibutu raadisa lama shaqo ya abiyuqiya ya ilmahiya oromo fi Soomaali wala raadala tani please abdi ile fi gudafa isa qarar rakhas tanu marakon oromo Luchapachape yo Oromo boche ni boya yo Somali boche ni boya ilmaan khiya lamenu khiya Somali hade oydawan oy Oromo hade oydawan oy halkan rafu bil Somali hade oydawan oy Oromo hade oydawan oy Somali hade oydawan oy Oromo hade oydawan oy Somali hade oydawan oy Oromo hade oydawan oy halkan rafu بليس عبدي إلا نتي أي سما إيبي أديرا ولا راجلني ولا راجين خير تكا عبدي إلا قد فايسا قرار رخاصة وحن ده هاي عبدي إلا صومالي ده موكلا صومالي ده أرمض وقد ولا لا fariinta qoomiyadda Oromada ay bulshada Soomaaliyeed u dirayaan ayaa qayb ka ahayd halkudhigyada inta badan ismaamulka Soomaalida Itoobiya ku soo kordhaya siyaasaddiiba isrugtay maamulkiiba wajh cusub yeeshay Oromadiiba seefta gasha kala baxay Soomaalidiiba hurdaysa inta badan Soomaalidu kama warhayaan qaabka loo hagardaamaynayo iyo sida shacabka Soomaaliyeed hurdada dheer ay ugu jiraan Oromadu waxay bilowday mar haday ogaatay horena waan idinku sheegay barnaamijyadii horena waad ku maqasheen Oromadu waxay ogaatay oo ay garowsatay Soomaalidu inay qabiil u nugushahay markaabay waxay ogaadeen inay jiraan dad qabiil ku diidan Cabdi Maxamuud Cumar markaabay door bideen inay yiraahdaan Cabdi Maxamuud Cumar Soomaali ma matalo Soomaalida kalena walaalaan nahay yaa la jeedaa maxaa loogala jeedaa maxay tahay sababta waqtigan Oromadu ay u keenayso bogga cusub ee siyaasadda miyaysan ogaan meesha Soomaalidu ka jilicsan tahay mar haday Soomaalidu ogaadeen inay qabiilka u nugushahay waa kuwa Oromadu waxay leeyihiin Soomaalidu waa Oromo iyaga waan u oynaa laakiin Cabdi Maxamuud Cumar uma oyno
maxaa loo kala saaray laba qaybood waxaa la yidhi qabiilka cabdi maxamuud cumarna waanu ka soo horjeednaa kuwa kalena waynu la oynaa maxay kula tahay oromada go'aanka ay qaadatana dhadhan ahaan maxaa kaaga dhadhamaya miyaadan ogeyn dhaawaca adiga had iyo jeer kuu buka ee aad adiga hoos ku haysato in ay oromadu ka war heleen qabiilka inay soomaali u jilicsan tahay oromadii way ogaadeen kadibna dantu waxay keentay oromadu inay kala dilaan soomaalida ku nool kilinka shanaad waxaa la yidhi ama oromadu ay xaqiijiyeen in marnaba iyagu aynan aaminaynin soomaaliya in cadowtinimo ay ka dhaxayso laakiin cabdi maxamuud cumar uu yahay cadowga oromada soomaalidu hadday oydawaan oy oromadu hadday oydawaan oy halkan raqu bilis abdi ile nuti eysuma ifi adeera wali raadalani wali raadinga khayga taka abdi ile gudafaysa qararakaasa waxaan leeyahay abdi ile soomaalida ma wakalo soomaalida oromadu waa dad walaala waa dad hiliba waa dad isla dhashay waa labadaba waanahay ubadkaygu waa oromo aan soomaaliyeed baanahay ha ka baxaan ha ka baxo abdi ile ha ka baxo abiyu kaalmeena u gargaartee maan u gargaarnay iyada oo oromadu ay garawsadeen soomaalidu inay u nugushahay qabiilka waa kuwa kala saaraya isla markaana ku dhawaaqaya cabdi ilay inuu yahay cadowga oromada waxayna leeyihiin inta kale ayaan walaalanahay aragtida shacabka iyaga iyo go'aankooda wax badanna waan idinkaga digay inay jiraan dad fara badan oo luqadda soomaaliga ku hadlaya oo oromada hogaaminaya isla markaana ay suurtagal tahay arrintan inay tahay mid quwad leh oo u baahan in ay ummaddu aad u dhadhansanto wixii kusoo kordha fariinta oromadu ay soo direenna insha allah waxaad ku maqli doontaan barnaamijyadeeda kale weliba waxay ii soo direen heesa fara badan oo oromadu ay qaadayaan oo ay ku jirto walaalaan nahay heesahaasina way iga dalbadeen inaan bulshada la wadaago heesaha ay oromadu ii soo direen oo af soomaali ku baxaya ayaa qayb ka ah waxyaabaha ay dalbanayaan warbaahinta soomaaliyeed inay u gudbiso shacabka soomaaliyeed oo inta badan ku xiran waxayna iga dalbadeen inaan soomaalida u shido qayb ka mid a heesahaasi walow barnaamijku uunan caawa ku saabsanayn balse anigoo tixgelinaya codsigooda ila dhegaysta heeso af soomaali ah oo oromadu qaadayaan oo ay leeyihiin soomaali walaalaan nahay fariimaha suugaanta iyo hadallada isugu jira oromadu ay dirayaan ayaa noqday kuwo si gaar ah warbaahinada u soo gaaraya kuwa afka soomaaliga ku hadla iyagoo dalbanaya ummadda soomaaliyeed in la maqashiiyo si ay ummadda soomaaliyeed u kala ogaadaan in soomaali qabiil u jilicsan tahay haddii la yidhi cabdi ilaynimo matelo ama soomaali ma matelo idinkuna waxaa tihiin dad soomaali ah inta luuqadda garanaysana iyagaa garan doonee iyagoo afkooda ku hadlaya waxay yidhaahdeen oromoon sininjibbitu yaa soomaali oromoon sininjibbitu raadhiisa lambaysituho yaa abiyuukiya yaa ilmahiya oromoo fi soomaaliya wali raadhalani wali raadhalatani biliis cabdi iilee fi guddaafaa isaa qararraa khaas haddaba fariimahaasi ayaa qayb ka noqonaya siyaasadda kusoo korortay ee siyaasadda ka jirta gobolka ismaamulka soomaalida Ethiopia dhinaca kale siyaasadda soomaalida xisbigii uu hogaaminayay cabdi maxamuud cumar waa tii uu gudoomiye la'aan ahaa maadaama cabdi maxamuud laga hor istaagay inuu xisbigaasi mar kale gudoomiye u noqdo Addis Ababa ayaa la geeyay ciidamada ka haystay cabdi maxamuud cumar waa la socoteen horena waxaan idiin iri siyaasadda maamulka ismaamulka soomaalida Ethiopia waxa la hoos keeni doonaa mudane Axmed Shide oo isagu qayb ka siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku jira dawladda Ethiopia Axmed maanta gudoomiye laga dhigay booskii cabdi maxamuud cumar ee xisbiga ayaa loo dhiibay waxa la yiri ilaa doorasho ay ka dhacayso siyaasadii maamulka waxay hoos imaanaysaa Axmed Shide oo qayb ka ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee qurbaha ka laabtay oo aqoonta markii uu aqoontii dhamaystirtay kadib ku laabtay dhulkii isagoo ka yimid kadibna halka ayuu siyaasadii ka galay cabdi siyaasiyiintu waxay u arkeen waqtigan siyaasadda ismaamulka Soomaalida Ethiopia inay muhiim tahay Axmed in la hoos keeno hadda siyaasadii maamulka waxa la hoos keenay Axmed Shide isaga ayaana looga dambeyn doonaa siyaasadda maamulkaasi gudoomiyenimada waa loo doortay haddaba shacabka Soomaaliyeed sidee u aragtaa xisbiga gobolka ismaamulka Soomaalida Ethiopia in gudoomiye u doorto Axmed Shide adigu sideed u aragtaa
aragtidaada xor baad u tahay dhegeystayaashana waxay nagala soo xiriiri karaan telefoonka idin muuqanayo oo qof kasta uu xaq u leeyahay aragtidiisa inuu nala wadaago welibana ay qayb ka noqoto qof kasta fakarka uu la wadaagayo barnaamijka uu noqdo mid markaa aragtidiisa ay u dhammaystiran tahay hadduu alla idmana waxaan idin ballan qaadayaa hagardaamada oo aan ka daali doonin hadduu alla idmo hagardaamada la khiyaanayo soomaalida iyo qaabka oromadu ay u soo jiidanayso oo isugu jira khudbado heeso oo ay leeyihiin soomaalida hana laga gaarsiiyo ayaa qayb ka ah waxyaabaha aad moodo in bulshada soomaaliyeed aysan badankood ka warhayn insha allah waxaan isku dayi doonaa intay goorgoor tahay inaan ummadii la wadaago inta ay suurtagal tahay habeen wanaagsan haddaad imaqlayso habeen wanaagsan walaalo wanaagsan wacan soo dhawow aragtidaada ku biiri barnaamijka axmed ayaa loo magacaabay guddoomiyaha xisbiga sideed u aragtaa aniga aragtidayda axmed de kolley intuu qof wanaagsan oo gobolka hogaamin kara inkastoo aan aqoon u lahayn anigu waan jeclaa maaragtay qabiilkii muddo soo hogaaminaya maaragtay in laga bedelo qabiil kale bar loo dhiibo bal inay dhaamaan iyo in kale ya haye marka de kolley maaragtay waa nin kolley siyaasadda ku jira marka in qabiilkaas bar loo dhiibo hadda maaragtay arrintii ay meerto ay noqoto oo nin asaguna dadkii u cadaalad sameeyaha hadduu yahay oo sidii cabdi ilay oo kale uusan dhaqmaynin anagu waxba uma arko aadaanan u soo dhawaynayaa marka dee wanaaggana allaha waafajiya dee ummadihii kalena inay la shaqeeyaana fiican kolley nin baa meesha imaanahaa soo maaha haye marka maadaama reerkan maaragtay muddo ay iyagu soo haayeen maxaa tiraahday 10 sano ugu dambeydaan u malaynhayaa inkastoo anigu gobolka aanan u dhalan in marka nin kale loo dhiibo oo dadka meesha u dhashay ah dee aaday u fiicanta waa alcadaala anigu aragtidayda marka iyaguna waxay ku qasbayiin inay la shaqeeyaan asagana waxaa laga codsanayaa isna inuusan dulmigii ina ilay sameynhayo kale inuusan samaynin waayo ina ilay xataa gobolka keliya ma dulmina soomaalida xataa kaloo dariska la oo dhan oo dulmiyey ma ogtahay waa yahay mar haddii beel cusub ay hadda hogaaminayso xisbiga horena aanan loogu arki jirin siyaasadda ismaamulka soomaalida maxaa laga filan karaa weji cusub haddii arrintu ay gaadho waxaa laga filan karaa wax wanaagsana laga filan karaa waxaa dhici karta maaragtay inay iyagoo istoosaayo isla maaragtay maadaama Ethiopia oo dhanba hadda ay isbedeshay oo maaragtay oromadii hadda ay maaragtay ra'iisul wasaare ay noqotay iyadoo muddo aan noqonin waxaa dhici karta soomaaliduna inay la tartabaan oo isaguna maaragtay oo gobolkii maaragtay isaguna wax wanaagsan uu ka soo saaro ayaa laga filan karaa wax xunna waa laga filan karaa oo waxaa dhici karta reerkii muddo soo hayay inay xanaaqaan oo maaragtay gadoodaan oo iyaguna dagaal kale hor yimaadaanna waa dhici karta marka waa 50-50 aniga kolley aragtidayda sida maaragtay dhaqanka soomaalida lagu yaqaan waa mahadsan tahay asalaamu calaykum habeen wanaagsan وعليكم السلام walaal soo dhawow aragtidaada aqoonsiga ama guddoomiyihii xisbiga ismaamulka soomaalida Ethiopia waxaa loo magacaabay Axmed Shide waana qayb ka mid ah siyaasadda isbeddelka ismaamulka soomaalida Ethiopia in siyaasadda lagu soo kordhiyo qabaa'ilo aan marka hore ka dhex muuqan jirin iyo siyaasiyiin aanan qaybta hore loo ogolaan jirin inay hadda hoggaanka qabtaan maxaad u aragtaa والله واح في عن بلوانو واح في عن haye إلهي قرب كيس الله قبك وعن كل شيء صومالد وحدتاي أنا بلا ظلمنا ناي haye أنا ظلمين haye عدي نكا ماشي لا خادي خبير ويالنا وحول بويالا سيدي صومال عملي بربري waa gartay markaad leedahay qabiil buu yeelanayaa maamulku inuu isbeddel sameeyo dhadhan intee la-eg baa ku jira wax badanaa ku jiro hadday ogaadeenka sida daacad ee ninka hadda la doortay inay raacaan waxa ay u qabtaan maan cabdi ilay dadka waa xasuuqi dhibuu u geeyey hadda haddii cabdi ilay meesha laga qaaday ninka hadda la saaray waa in soomaalida as hogaamiyo si fiican waxaas u qabto waa nin muwaadin ah waa nin meesha u dhashay cabdi ilay hadda waxay samaynayeen ogaadeena laga qaaday diraa loo dhiibay dagaal iyo khajaja ay keenayeen soomaalin qabiilka ma dhammaado waa yahay aad aad u mahadsan tahay fakarkaaga saliimka ah habeen wanaagsan qadka xiga habeen wanaagsan السلام عليكم عبد الله وقت سلام waa kaa qaada mid lamida soo dhawow aragtidaada xisbigii talada ismaamulka soomaalida Ethiopia Axmed Shide ayaa loo dhiibay oo hogaaminaya siyaasadii maamulka iyadoo wax waliba isaga ay hoos imaanayaan isbeddelka ka dhacay ismaamulka soomaalida Ethiopia ee qaabka loo doortay maxay kula tahay والله رنتي marka hore waxa fiican sicileysan in loo fiiriyo arrinta loo fiican hadda la joogo wuxuu baanta deganaansho iyo isfaham haye hadii laga qaado Soomaali ah
ومن صوماليا كان لو ديبن waxay taagan tahay marka hore in fahamku uu badnaado aysan marka qofka laga qaadan uusan xanaaqin loo diiban uusan ku barxin waxaa jirta bigger fish to fry bamaanaha malaa'ik weyn la daba baahan oo baahan Soomaalnimadii in la soo celsho marka hore u baahan tahay in la fahmo naga dabeecadana waa run looga faa'iideysta arrinta khabiirka la yiraahdo waan ku dhaqanaa oo diintana waa ka sareysaa khabiirka ka sareeya badan ka fiirsi aad iyo aad isbedelkan oo kale horey uma dhici jirin oo inta badan siyaasadda qaar ka mid a qabaa'ilada deegaanka iskama dhex arki jirin hadda nin dir ah ayaa siyaasaddii dalka loo dhiibay ismaamulka soomaalida etoobiyana ninkaa ayuu hoos imaanaya maxaa kaaga soo baxaya maxaana laga filan karaa wejigan isbedelka ah iyo xisbiga oo aanan inta badan hogaanka ka dhigan jirin dadkaas degan dhulka deegaanka soomaalida etoobiya laakiin hadda ay noqotay weji cusub iyo aragti kale maxay kula tahay waxay ila tahay wax aad u fiican oo isbedelku laga qaado sida badan Ethiopia dhan baa isbedel ka dhacay marka waxa hada jirin isbedel cusub u yimaado waa loo qasban yahay waana safar fiican oo dadku badankood iska dhaxarti doonaan kuwii hore u joogana ay ku cimri qaadi doonaan iyo sida dhacday marka isbedel cusub oo hadda yimid waa in laga faa'iideysto baahan midda kale rabin aad ka xareeyo waxay tahay waqtigan la jooga xaadirka ah dadka Soomaalida ay deegaan ku ma baahna wax dagaal leeyahay iyo sooga ana qabli ana san hajirana marka hore dadka kuma jirana waxay u baahan yihiin inay soo tagaan tanaasulaan anigu ma dhalan gobolkaas laakiin inay tanaasulaan horumarna ay fiiriyaan ay u dareemaan inay horumar socdaan markay wada dhan yihiin ay gaari karaan meel marka dadkii laga qaadana waa inay raacaan waxaan ku faraxsanahay habka wax u dhaceen hadda taan ninka odaygan jaaniskiisa la siiyo lana dabagalo waxa uu suubiyo waxaan dhibaataan ma keenaysa haddii hal qabiilkada meesha lagu hayo waxay noqonaysaa mid dadka kale nacayb iyo dhibaato loogana cadowgana uga faa'iidaysta waa simple waa wax fiican oo soo kordhay dadkuna waxay ku qasban yihiin inay dabraacan xabad iyo dagaal aan jirin waxaan rajaynayaa mustaqbalka haddii ay isfahmaan Soomaalida inay iyagu xukumi doonaan waddanka dhanba sodhaafayeen maartay localkii hadday joogaan waa maasan tahay sida quruxda badan oo fikirkaaga noola wadaagtay aragtida shacabka waa qayb ka mid a fakirka qof kasta oo dhalinyaro ah uu nala qaybsan karayo waxaan ka cudur daaranayaa internetka oo aad igaga liita xaggayga oo inta badan aysan suurtagelaynin oo dadka qaarkii ay ka go'ayaan qadka uu ka go'ayo ka raalli ahaada dadaal ayay qolada farsamayaqaanadana ku jiraan in saaxiibadu ay la jaan qaadaan barnaamijka rabbi hadduu idmo iyadoo internetka uu noo saamaxayn isku xirkii inta badan barnaamijka aad uga barateen dowladda federaalka Ethiopia ayaa isbedelkani waxay qayb ka dhigtay aragtida guud ee shacabka Ethiopia iyo xanaqaadka guud ee isfahamka siyaasadda Ethiopia oo ka dhigaya weji aad uga duwan kii hore inta badan aanan looga baran siyaasadda Ethiopia iyo waliba dhulka Soomaalida ismaamusho كلينك شنادا ما دولك deegaanka Soomaalida Ethiopia xisbigii ugu horeeyay ama ugu baawarka weynaa ee maamulka Soomaalida Ethiopia ayaa Axmed Shide loogu doortay gudoomiye sideed u aragtaa assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته soo dhawow sideed u aragtaa Axmed Shide oo gudoomiye looga dhigay xisbiga ismaamulka Soomaalida Ethiopia oo horey gudoomiye ugu ahaa Cabdi Maxamuud Cumar ayaa isaga imika uu hogaaminaya maxay kula tahay نيو آد بوسو دويني أرنكاس وحوي مدبلن با كل المناشقوني جماعتي أنا لفوي تكتب ماشا حسبي تجي تجي ماشا أوياش دقن كوي تجان يعني وحنا مغلي وحنا إسلاف قرتي أرنتي صح الله وهرا إن كان الدنيا الله بقى ده ترى أوياش يو كل الإنسان سياسات باي موضة marka waxaan jeclaan lahaa inuu degto meeshaasi oo nabadii iyo soo waddankaasi suu ahaa aad baad u mahadsan tahay internetka oo caawa aad igaga liita ayaan aad uga xumahay inaan dhammaystiro barnaamijka way adag tahay sidaa darteed barnaamijkan mid lamid a waxaad dhegaysan doontaan hadduu alla idmo barrito saacaddu markay soo gaadho 2 duhurnimo inta ka horeysa internetka ayaan ii saamaxayn oo qadka ayaa caawa si aada qaybta South Africa uga liita cimilada dalka oo caawa ka duwan sidii hore iyo iyadoo ayna saamaxayn dhamaystirka barnaamijka intaynu barnaamijka lamid ah ku kulmi doono waa balwaan idinku dhaafaya habeen wanaagsan habeen wanaagsan